iyadoo duduuban waxaynu leenahay waa mas-uuliyo laga rabo qof kasta oo muslima maadaama uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadiisii oo dhan calala qalamayntii ugu badnayd ay joogto oo uu la wada hadlayo oo mid baadiye ka yimi iyo mid magaalo ka yimi mid caalima iyo mid dhowaan soo islaamay mid wax badan garanaya mid in yar garanayaba joogaan ayuu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii walow aaya iga gaadhsiiya dadka aayadna ha noqotee waa mafhuum wakhtiyadan dambe gaabiyey oo dadka in badanoo ka midii ka gaabisay ama laysku halleeyey oo in badanoo ka midii is idhaahdeen cid kalea mas-uuliyadani saaran tahay waa mas-uuliyad haddii dadku xilkeeda wada qaadi lahaa siday muslimiintii hore u wada qaadeen fududaan lahayd walidaalik waxaan rabaa bacdi nuqaad ama qaybo yaryar inaan idin soo guuriyo oo maalan axad ducaat cabdilwahaab aلطurayri mawduucu qoro la yidhaahdo alcamal liddiin mas-uuliyat اljamiic ayaynu muqhtatafaad ka qaadan doonaa waxa uu tilmaamaya kow in islaamka loo shaqeeyo waa qariinu اlintimaa'i ilayhi buu leeyahy waa wax ku xidhan inaad ka tahay uun yacni caqdi dheeraad oo kale uma baahna xambaarista dacwadan la qaadaya waxay ku xidhan tahay inaad islaamka muntami ku tahay inaad ka tirsan tahay inaad qof muslima tahay oo qura waxay ahayd buu leeyahy caqiidadaasi mid caqligii dadkii hore muslimiintaha si cad ugu taalla mid aan shaki iyo murantoona kaga jirin kuwooda jinka ah iyo kuwooda insiga aba waxay ahayd mas-uuliye uu dareemo qofka muslimkii bimujarad marka uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bayca la galo amhila aan qaadana min ataariikh waxuu sheekhu keenay iyo waxaynu ku darrabaa almithaal alawal waa qisa طufayl ibnu camar addawsiy saxaabigaasi la odhan jiray طufayl ibnu camar addawsi qabiiladiisa oday u ahaaya nin gabyaaya ahay oo xikmad badan ayaa iska soo cimro tegey dabeetana wuxuu maka ku soo beegmay wakhti siyaaj iclaamiyi uu ka jiro cunaqabatayn aan idhaahdo xooggan oo xagga miidiya ahi ay haysata nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku guulaysteen nimankii quraysheed inay dadka ka dhaadhiciyaan inuu nin ama sixiroola ama khatari uu joogo oo loo baahan yahay qofku inaanu hadal ka maqlin maaha inaanu raacin waa inaan codkiisu ku soo gaadhin طufayl ibn alcamr addawsi oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaanaa wuxuu leeyahy warkii siday igu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado codbi intuu goosto inuu labada dhagood fureeyo uu isleeyahy bilaaba a iska soo horbaxdaan yaad codkiisa maqlin inuu u tegayo ama uu socdo ama caynkaase waa haddiiba coaccidentia si uuna hayru caadi a isuga soo horbaxdaan yaydan codkiinu isku soo iyo codkiisa aad maqlin wuxuu leeyahy markii aan meeshii yimi haddana wuxuun baan rumaystay war nin weyn oo caqli labaatee maxaa afurtan dhagaha kaa geliyey nin weyn oo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weyn oo gabayga iyo kahaanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhagaa kuu fureeyey furtaan iska tuuray buu yidhi dabeetana intaan u tegey baan ku yidhi buu yidhi bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysa ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu usoo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahy oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go-aanka ah mas-uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yar uu nebi moxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam
dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu alla u baryo tolkii buu ku noqonaya ayayn diinta tolkii aqbalaan tufayl ibni camr idawsi dib buu u laabtay tolkii buu u tegey diintuu ugu yeedhay waa la hadlay meedhadhi yar mooyaan waa laga dhaga adeygay waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhegaysan weyday adigu xilkiina gudatay waajibkiiska riday cidina kaa dhegaysan weyday ee waa qof muslim oo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayoo qura isagoo cabanayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madax adeygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u bari inay ilaahay bele ku soo dejiyo habaar dadka diiday inay wax islaam dhegaystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixiinkaba ku yaala bukhaari iyo muslimba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allahuma hdi dawsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilow reer dows oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwaddiisii wada culamaai taarikh waxay yidhahdaan 70 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay ragguu wato yaa ka mid ah diinta alla inugu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayre soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati daws waa dawsi abaa ka mida ragguu keensaday tufayl ibni camr dawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamiga ah inuu diintan qaado oo uu cid kalan gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirray imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga kan xambaarnay intaynu dad diin ugu yeedhnoo gaadhsiinay saxiixeynka waxaa ku soo arooray qisatu abi darri alghifaariy saxaabigii la odhan jiray laba xadiid oo midna bukhaari iyo muslimba wada warinayaan oo ibn cabaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaaf uu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay xinka ku yaala bukhaari iyo muslimba abi darri alghifaari nin xaq raadinayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd isagoo fii dannisu isagu u malaynayo sheeganaya inuu yahay rubcu lislaam fii waqti isagu fii xuduudi cilmi bay culammadu ku fasiraan inay ahayd laakiin dad kaloo iyana sheeganayaa jira waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo uu dadka u yimaado nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino uu yidhaahdo tolkaa iskaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubculislaama buu leeyahay islaamkaba kii afreeya saddex xun iga horaysaba abidar alghifaariy magaalada maka buu soo galay maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan karaa aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan cidna waxmaan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi mid dadka ka mid aan sir buu yidhi kaasi waa iska daciif waxna ma oge kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xagguu joogaa malaa waa iska kaaxil qarinaya midaan yaro daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xagguu jooga waaba igu qayliyey buu yidhi kiina kor buu qayliyey hada saabi hada bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay bimujarad inuu cid weydiiyey xagguga laga helayaa ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu cabbaas soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan war ninkani waa nin khifaara khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaalliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan safarka shaam marka lagu socdo waddada la maro
qabiilkiisa degan quraysh mantaqii ay fahmaysay buu cabaas kula hadloo ah hadda kamaydan maarmin buu leeyahay shaam inaa u safartaan ninkaa tumaysaana waa nin bani ghafaar ah markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaada riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynka waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray cali ibn abi aalib oo nin yari uu arkay ninkan qariibka ee meesha iska fadhiya ee iska qariibnimadu ka muuqato markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay maana wada hadal buu yidhi gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraaya intii uu biyaha ku sitiyey wixiisii buu iskala soo noqday abidarmaga wuxuu ku soo noqday makadiisii beytkii meeshii aniga sabkii dambu haddana cali soo maray ninkii oo war weli miyaad helin buu yidhi ciddii aad daydayaysay inakeen waa kaxeeyey habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidlada iska fadhiya calaa haddana casuumay markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad ciddaad u helisiyo waxba toona helinoo waxaan rabo aan ku weydiinaya ii ballan qaad buu yidhi inaad qarinayso waa kuu qarinayaa buu yidhi waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya soo dabagal buu yidhi halkaan ku socda weeyaane waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigayaa markaa faham meeshu waa minaysantahay islu imanin riwaayaadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajsanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi waa laba nin oo isdaba socda oo hura wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan kadibna astaantii iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii waday weydiiyey xadiidka waa soo koobaynaa maxalu shaahidkaynu soconnaa maxalu shaahidka waxa weeyaan wuu islaamay markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay unina u yimaadaan waayo nimaa qariiba oo aan u dhalan magaalada oo caynkana dacwadda culaysunbuu kuyo cidima ilaalin karayso wuxuu uhi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensan yahay dacwaddan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa dib buu usoo laabtay dabeetana intuu makaysi dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayey ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahaada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii cabaas ba haddana ku soo baxay waa ninkan aad tumaysa waa nin reer khafaari miidan garan waa laga tegay tegi maayo buu yidhi la asrakhanna biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana kaga dhex dhawaaqay sidii oo kalea loo tumo haddana cabaaskii baa loo bixiya uu ka tegay yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantahay walow lagu dilayo ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkiladi ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahy wuxuu arkayaa ammaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahma kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin karo ama diin gaadhsiin karo inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadano damaad alasdi saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuuqiyey nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jiman iyo waxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yaro dhiman yihiin inuu yahay waxaan u imi buu yidhi kollayba ma ka gaadhaye bal ninkaa intaad raadiso waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay waxbuu tuftufi jiraad bal waxoogaa ku akridid qoladii fii zaman aljaahiliya jibankan iyo waxaan ilaa weligeedba waxbaa lagu tufi jiray mid saxa iyo mid qaladaba kiniisaddaa ku tufto muslimkaa ku tufo qaar kalea ku tufo waa loo fooxiyaa waxaan is idhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay aad waxoogaa ku waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi aniyo waxaan maqlay in xanuunku hayo dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee maxay kula tahy
waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo, ninkii dadba ugu caqli badnaa, ilaahayba basharka ka dhex doortay, rasuul iyo nebi ahaa, ummaddan dhan loo soo diray, ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay, nin waalan yaho waxu dhiman yihiin. kadib markaanuu yimi buu yidhi, waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay, waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo. nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbat alxaaj ayuu akhriyay baa la yidhahdaa. ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu. khudbadaasuu akhriyey. man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya. khudbadaasuu nebigu akhriyay calayhi salaam biriwaayaatiha almukhtalifa. axaadiista qaarkood xamdale iyo intaas, axaadiista qaarkood waa ka yaro dheerayaan. naska saxiixu muslim uu ka gaaban yahay. ama dhammee ama gaabe adigu saa doontaba bal nusuusta isugu duduwo. khudbat alxaaj ayuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya, iigu celi. markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ku yidhi acidhaa calaya, iigu celi. mar saddexaad buu ugu celiyey. wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay, oo sixroolo waan maqlay, oo kaahin waan maqlay, oo kan waan maqlay. warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka. dee nin waalan haddaad hadal 3 goor tidhahda ku celi wuu ku derderi lahaa. marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi, wax kaloo haddana akhrii lahaa. dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi, wax kaluu sheegi lahaa. waxaa muuqataa ninkani nin waalan inaan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbat alxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud. wuxuu ka warramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam. calaa kullin meeshan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama. damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaamay. markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelaya, heshiis baan kugula gelayahay, waa islaamkaan qaadanaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi wa calaa qawmik, keligaa ma rabo, dalkaana heshiis igula gal. waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwaddaa inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo. ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii, oo uu nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam. markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi, naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya. tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii. yani waxay ahayd dacwadda islaamigu fii cahdi asaxaaba oo fii jiili muslimiintiiyo koowaad wax la mida qariinu la'i ila alislaam. qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku fillayd inuu daaci yahay. inuu diinta soo galay ayaa waxay ku fillayd inuu daaciyey. kuwa aynan arkayninna qur-aankaa saasoo kale inooga sheegay. yani saxaabadii la arkayay bidhaantooda la yaqaanay iyagaa ka warramay. axaadiistaa soo aroorisay iyagaa uga warramay. ibnu cabaas baa inaga warramaya abidar siduu islaamay, ama tufayl ibnu camar addawsi baa ducooyinkiisa iyo baryadu nebiga wuxuu weydiisanaya axaadiista bukhaari ka warramaysa, ama damaad baa waxaa ka warramaya saxiixu muslim. yani axaadiistoodii iyaga waa lasoo naqliyey. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba waa loo soo diray. xataa jinkii rumeeyey dariiqadan buu isna maray. jinku inay dariiqadan mareen iyaga axaadiis saxaaba inagu soo warisay ma jirto, laakiin rabu samaawaati waalardi baa ka warramay. iyana ka warramaya inay baabkan u wadeen. saa daraaddeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin qaluu ya qawmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq waila طariiqi mustaqiim ya qawmana ajiibuu daaciya allahi waaminuu bih yagfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allah. aayaadkaasi fii suurati alaxqaaf gabagabadeeda ku jira rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyay waid sarafnaa ilayka nafara min, waxaad xustaa nebi maxamed oo dadka uga warantaa markaanu xaggaaga u soo weecinnay koox jinka ka mid ah oo ay ku dhegaysteen baa ilaahay leeyo qur-aanka ay dhegaysteen. markii ay qur-aanka maqleenna war bal aamusa bay idhaahdeen. aamusa. falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu, fiican u fahamna warkuu sheegaye. markay aamuseenee dhegaysteen qur-aankeena falamaa qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin baa ilaha yidhi. nebi maxamed markuu qur-aanka dhammeeyey
iyana ducaad bay ahaayeen waxay bilaabeen inay tolkoodu yeedhaan baa la yidhi subxaana wa tacaala yani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusays yidhahdeen oo qur-aan dhegaysteen intaasay barteen ti qur-aankii uu nebigu akrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallow ilaa qawmihim mundiriin qaluu ya qawmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ila ariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab la soo dejiyey muuse gadaashi oo wixii muuse uu wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qawmana ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaana wa tacaala kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilahay baa dembigiina dhaafayo cadaabka idinka dhow yani waxaan u daliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabada a fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhegaysatayna inay mas-uuliyaddaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen